Xilligan waxaa baryay waagii waxayna maraysaa xilligii markaasi xoolaha la maali jiray. Geela waxa uu ka mid yahay xoolaha Soomaalidu dhaqato kooda ugu qiimaha weyn. Awaano ayay waxay ka tiriyeen sheekooyin badan. Xilligan waa xilli ay markaasi geela inta riman toobtaha lala aaday, waxaana guddigood la maalayaa geelii. Halkaasi waxaan xareysan ubadkii iyo weliba xoolihii kale kaba marnaaye. Dhanka lo'da xilligani way barqimeysanaysaa, ariga sidoo kale wuu barqimeysanayaa. Waxaa maantay loo wadaa in ceylkii la geeyo oo laga soo waraabiyo. Waxaa geelani waraabinaya wiilkani oo wadaanta yar ama dalowga markaasi ku waraabinaya waasta dheer oo markaasi geelu uu ka hooban yahay kana cabayo biyaha oo wiilka dalowgu markaasi ceelka ku shubayo. Ceelku ma ahan kii bacaha dheer iyo xargaha dheer ay geli jireen oo 4 nin iyo 2 nin ay bixin jiray, laakiin waa xilli iska barwaaqa. Biyuhu ceelka afkiisa ayay taagan yihiin oo halkaasi ayuu ka darsanayaa, geelana ka waraabinaya. Geelii iyo xoolihii kaleba way soo cabeen. Waxaa loo dareeriyay oo loo fuliyay halkii saakay laga soo arooriyay. Waa xilli casar gaabad ah, waxaana xilligani mid ka mid ah halaha markaasi geela ku jiray ayaa waxaa ceyrsanaya ratiga baarqabka ah ee geela markaasi hogaamiya. Ratiga baarqabka ah waa midka xilliyada geela loo doonayo inuu rimo ama uu dhalo loo keeno. Waxaa labada dhinac ka taagan 2 dhalinyaro oo doonaya inay u qabtaan ama u celiyaan, maadaama xilli barwaaqa ay tahay. Ratigu wuxuu isku dayayaa inuu hasha abaahiyo oo laftigiisa wuu doonayaa, balse hashu ayadu waa mid ka bidiidan celcelis iyo waqti dheer. Ugu dambeyntii hashu way fariisanaysaa, halkaasina ratigii ayaa ku abaahinaya. Geelu waa mid ka mid ah xoolaha ay Soomaalidu dhaqato, kaasi oo inta badan ay Soomaalidu aad qiimo weyn ugu fadhiya. Waa midka markii Soomaalidu dil ama xoolo ay kala qaadanayso ay kala qaataan. Warbixintani aynu ku eegaynay geela waxayna la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdiraxmaan Soomaali. Fadlan channelkan haddaad ku cusub tahay subscribe dheh, gambaleelkana furo si aad ula socoto warbixinadeena iyo muuqaalada aan channelkeena soo gelino. La saaxiib waa hoyga horumarka Soomaaliya ee Hiila Media.